Soomaalidu waxay taada hadalka marna waa laga shag marna waa lagu shimbiro waxay kaloo taada gardabadeed baan guuguunahay dhammaan go'aamada culimada iyo isimadu ay soo jeediyeen iyo ergadii dhexdhexaadka ahayd sida ay u soo jeediyeen baan ku qaadan wax la yiri arrujuuc ila alxaq fadila de haddii ay jirtay waxyaalaha xaq darro ah oo shareecada u idaarsan oo aanu anagu ama ku heshiinay de waxa ka mid ahayd dilxumadu waxa tiraadeen go'aamadiinii hore qaadateene idinka yaqaana saa u kala saaraysaan laba magood baa jiray oo dilxukumadii ku jiray de haddii ay shareecada u idaarsan tahay aataadeen waanu tuuray haddii hadal kama banaana laakiin se waxa taadeen go'aamadii hore sidoodiina waa u deynay waa taadeen halka idinka kala saari doono oo dadka u iftiimin doono qodobka kale de waxa jirtay waxaanu sharci darro ku kala qaadanayo 40,000 oo boona baa jirtay aanu sharci darro ku kala qaadano de waxay la tahay xaqana waqtigii la qabtay way taana saa u kala celin lahayd in idinka yaqaan taasi waa ta kale waxa jirtay dilalkaasi de waxna dhex maray ahaayeen waxay ahaayeen wax idinku aad dhexdhexaadiseen oo aan labadeeda qolo midna qirsanayn waxa kamid ahaa qoladaasi hal nin bay yiraahdeen anagu ma qabno dhaarbayna aanu ugu soo diyaar garownay qoladeeda kalena inantii yareed inaan waxaanu nidhi ma qabno dhaar baanu ugu soo diyaar garownay labada idinka naga dul qaaday cid qiratayna ma ay jirin taana waxa weeyaan waxaad moodaa inaad ku soo darteen waxyaalihii aanu isla qiranay taasina si gaar ah bay ka ahayd waa se qaadanay wixii aad noo soo jeediseen maslaxaad ama go'aanba waanu qaadanay qodobka kale waxaan u malaynayaa de culimadu waxaynu filaabo weyne gawaarida raacdaa waxaan qabaa go'aamay rideen laakiin waxaan ku darsanayaa kelmad qura maanta madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumaddiina way fadhidaa waan uga mahadnaqaynaa culayska iyo dhibta ku dhacday xukuumadda iyo ciidamada qaranka iyo ergooyinka iyo Soomaaliland oo dhan waxaanu dalbanaynaa in la ka saamaco waxaanu qaranka iyo nafteedaba u geysanay ilaahayna aanu cafiska weydiisano inuu naga saamaco annaguna inaanu iscafino oo nabad qaadano oo reeraha iyaga aanu u naxno oo dadka iyaga u naxno arrinta deedajina weey waxaanu ka codsanaynaa labada beelood ee walaalaha maadaama aynu filayno culimadii iyo gudidii xukunka riday inay tagayso arrinkii hoos laguma daadigin waxa jirta magaalooyin la wada degi jiro lagu kala maqan yahay dinin magaaladiisii iyo xaaskiisii ka maqani de waa ogtiina nabadgelyo ma jirto taasi waa arrin labadeeda dhanba aanan ku kala fara ugnaan doonin nabaduna ku xasili doonin haddii aan de magaalooyinkii la wada digin waxa jira ceelal aanu ka wada cabi jirayoo go'aamo hore laga soo qaadayoo cidi weli degan tahay haddii aan ceelashii ceelal loo dayno hadda la wada diginna oo la isugu aroorana oo aan heshiis ka dhicinna oo aan hoos la digina dhibtii halkeedii bay ka dhici doontaa arrimahaana waxaan soo jeedinayaa labada qolo aad iyo aad ba u mahadsantahay. Assalaamu calaykum.